شيخنا فتاواها حلقة اللباد إمانتا سائلك كوباد وحولي هاي شيخ وحان ولا لنهاي لبا قبضوت oo qaan gaaray aabahay wuxuu diidan yahay inay soomaan sababtuna waa inuu u arko inaysan awoodin soonka hooyaday ayaa si qarsoodi ah u soomisa iyaguna way soomaan balse markuu aabahay ogaado inay sooman yihiin wuxuu ku khasbayaa inay afuraan sheekh arrintaas maxay diintu ka qabtaa bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى والدك وحواجبك إنه إلمها أقو كالميو عبادة إلهي تبارك وتعالى إنه بره إنه السمايان وكل داله inay qaan gaadhaan iskaba dhaafe iyagoo qaan gaadhin baa la rabaa in lagu sii tababaro cibaadada salaada waa ka nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam caruurta amra iyagoo 7 jir ah 10 jir markay gaadhaanna salaada ku garaaca soonkana saxaabadu ridwaanullaahi calayhim caruurta iyagoo yaryar bay soomin jireen oon qaan gaadhin markii ay gaajoodaanna waxyaalahan caruurta ay ku ciyaaraan bay ku maaweelin jireen oo wakhtiga ku dhaafin jireen marka caruur qaan gaadhay oo iyagii soomaya in soonka loo diido waa dembi weyn waalidkaasina waa waalid ka dhacsan waajibkii ilaahay saaray in amarkiisa la yeelana waa khalad oo lagu ateeco isaguna dembi buu ku jiraa oo sharci ilaahay waajibiyey buu jabinayaa in laga yeelana ma aha gabdhuhu waa inay soomaan hooyadoodna ha ugu kaalmayso inay soomaan odayga amarkiisana ha la diido wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك لباد وحولي هاي شيخ الله كودن بدافو در الله يان كو جعلهاي waxaan wataa su'aal ah maalin dhaweyd waxa ii wacay dariskayga waxaan u soo gowracay digaag ama dooro anigoo sooman shaki ayaa igu jira ma ii jira soonkaas mise waan soo galeeyaa bismillaahi rahmaani ila digaag gowracdo ama neef xoolaa gowracdo waa shay mubaax oo bannaan wey marka shay bannaan oo shareecadu bannaysay waxyaalaha soonka jabinaya kuma jiro waxyaalaha soonka ajirkiisa dhib u geysanayana ka mid maaha waxyaalaha soonka jabiya waa wax kooban oo 1 iyo 2 wax la tirin karo wey wixii dembi ee shareecadu diidayna ee kalena soonka yana jabininba laakiin ajirkeenu isqaaminaya laakiin inaad neef gowracdo ama digaag gowracdo dembina ma aha soonna ma jabiso waxana yeeli mayso waa mubaax way bannaan tahay ruuxa ma soomanaada ma soomanaan wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك السدحات وحولي هاي شيخ لبسنا كهر waxaan dhowr mar jimaac ama gogol dhaaf sameeyay bil Ramadaan haweenaydaas aan jimaac ku sameeyay anigu ma aan qabin marka aan weydiiyay inta mar ee aan jimaac sameeynay waxay dhahday ma xasuusto aniguna ma xasuusto sheekh maxaan sameeyaa oo ila gudboon bisha Ramadaan ruuxa hadduu galmo sameeyo asagoo sooman ama xaaskiisa ha u galmoodo ama galmadu zinaha ahaato waxa waajib ku ah inuu toobad keeno waa un dembi kala weyn oo waxa weyn dembigu markuu zina yahay
zinadii oo gooniya iyo ramadaankii oo jabisay waa laba dembi oo isa saaran markuu ninku xaaskiisa uu soonka ku jabiyo oo uu galmoodana waa soonkii oo jabisay iyo galmo tii hore ka fudud xagga xaaraamnimada ood gashay sidaas daraaddeed ruuxa arrinkaa ku dhacay waxaa waajib ku ah kafaara muqallada kafaara adag baa waajib ku ah sida xadiidka saxiixaynka ku yimid nin baa nebiga u yimid sal alla alay wasalam wuxuu rasuulka ilaahay oo halagtu waan halaagsamay war maxaa kugu dhacay xaaskaygii baan maalin ramadaana u galmooday nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam qoor aad xorayso ma heli kartaa addoon maya buu yidhi 2 bilood soom buu ku yidhi oo isku xigta markay ramadaan dhammaato 2 bilood oo soon ah oo hal maalinoo afur ayna u dhaxaynin soon ma kari karo buu yidhi 60 miskiin quudi baa lagu yidhi ma kari karo buu yidhi waxa ma haysto kadibna nebigu sal alla alay wasalam wuu isaga aamusay iska fadhiistay dembiil raashina oo qolo wado oo sadaqa ah baa nebiga loo keenay sal alla alay wasalam kadibna wuxuu ku yidhi dembiishan qaado raashinkan qaadoo sadaqee markaasaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow aclaa afqara min ahli beyti ma cid reerkayga ka baahi badan baan ku sadaqaysan buu yidhi magaalada madiina reerkayga ka baahi badan maba joogaba yaan siinba oo reerkayga ka mudan markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam bas waaye marka reerkaaga sii marka kafaaradaasaa waajib ku ah towbadna waajib bay ku tahay inuu ilaahay u toobad keeno iyada iyo midda uu xumaanta la sameeyeyba muddadii intii beri uu jabiyey hadduusan garanaynin waa inuu xusuusto intuu xusuusan yahay kafaaradooda ha guto intuu halmaansan yahayna soonka sunnada ha badsado ilaahayna ha u toobad keeno dembi uusan ilaahay dhaafin ma jiro haddii towbo saxa loola yimaado dembiguse aad buu u wenyahay waana culus yahay wallahu aclam jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa'ilka afraad sheekhana waxa uu leeyahay sheekh waxaan ka maqlay dhowr ka mida culimmada suufiyada iyagoo leh salaada tahajudka in jamaaco lagu tukado ma soo aroorin ruuxii jamaaco ku tukadana laga ajar siin maayo ee sheekh wax daliila miyaa ku soo aroortay arrintaa horta waa wax la yaab loo dhinacna waa wax lagu farxo wadaadada suufiyada inay leeyihiin masaladu daliil ma laha oo waa bidco laanna waxaan uga barannay bidco oo dhan iyo wixii shareecada khilaafsanba inay geliyaan wax la yidhaahdo bidca xasana marka tahajudku inuu bidca xasana noqdo maxaa diidaya haddayba bidcooyinka kale faraha badanba agtooda ay bidco xasana ka tahay oo bidcadu furan tahay bayna xadba lahayn agtooda wadaaddo kale hadday dhihi lahaayeen baa dhaabi lahay daawa midda labaad masalada tahajudku waa salaaddii habeenkii la tukan jiray uun qaar ka mida tahajud waxaa la yidhaahdaa salaada habeenkii markaad tukato hurdo kadib intaad yaro seexato soo toosto salaada aad tukataa tahajud la dhahaa nebigana way ka sugan tahay sal alla alay wasalam axaadiis saxaaxa iyo sunankaba ku sugan in gelin dambena la tukado gelin hore la tukado habeenka dhexda laga tukado nebi maxamed bay ka sugan tahay sal alla alay wasalam waxay culimmadu ka doodaani waxay tahay in gelinka hore jamaaco lagu tukado gelinka dambena isla jamaacadii u soo noqoto salaaddii oo tacqiibka loo yaqaano yacnii taraawiixii hore ay tukanayaan waa isla salaatuleylkii
kadibna habeenka gelinkiisa dambe isla ayagii soo noqonayaan haddana jamaacay ku wada tukanayaan taas waxa la yiraahdaa tacqiib baa la dhahaa cinda salaf macnahaasaa loo yaqaanay taana way isku khilaafsanayeen a'immadii salafku oo nin la yidhaahdo Sufyaan Thawri wuxuu dhihi jiray waa muxdas waa wax dib laga keenay al-Imam